madaxweyne xasan sheekh maxamuud islaam sax ma aha waxa sidaas yiri Puntland ayaa waxa ay shaki gelisay islaamnimada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ninkan aad arkaysaan waxa lagu magacaabaa Aidiid waa wasiirka warfaafinta Puntland shir jaraa'id oo uu maanta qabtay ay waxa uu ku sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud in caqiidadiisa shaki weyn uu ku jiro hadaba bal waxa uu cuskanayo iyo sababta uu intaas u yiri marka hore ila daawa muuqaalkan kooban waxay leeyahay dhaqan xasan leeyahay oo aan dadka islaamku lahayn xasan qof kasta oo dhintay oo aan islaam ahayn uu u sujuudaa shaki wuxuu ku jiraa caqiidada xasan islaam ma yahay horta waay xasan waxa weeye dhaqanku dadku dhaqamada way kala leeyihiin qofka muslimka waxa lagu yaqaan qof dhintay inuu u duceeyo gacmaha kor u taagaa la yaqaan waxa la yaqaan dadka maartay majuusta inay gacmaha is saartaan baa la yaqaan wajiga u soo dhaweeyaan kristanka waxa lagu yaqaanaa inay hoos u gaabiyaan oo sidii wax sujuudayo kale waxay yiraahdaan iyagu dhaqankooda respect bay yiraahdaan bay respect xasan waxaan u maleynayaa caqiido kale oo qarsoon sababta uu qof dhintay oo gaala ugu sujuudayo ama mid la maqaama uu surka hoos ugu dhigo oo ugu sujuudo shaki baa ku jira ninkan aad arkaysaan wasiir Aidiid baa la yiraahdaa oo wasiirka warfaafinta Puntland waxa uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku tilmaamayaa inuu yahay madaxweyne ay wax u qarsoon yihiin hadalladan aad arkaysaan ayuuna cuskaday oo waxa uu leeyahay mararka uu ka qayb galaya aasaska wadamada kale dadka gaalada ay dhintay waa uu sujuudaa waa wasiirka warfaafinta Puntland hadalku uu yiraahdo sax iyo qalad waxa weeye waxa ay ka dhigan tahay madaxtooyada Puntland in ay raacsan tahay oo ay maaragtay raali uga ayay ka dhigan tahay waxaan ognahay dawladda federaalka iyo Puntland in khilaaf aad iyo aad u xoogan oo dhexdooda ka jiro ma ahan markii ugu horeysay oo dhaliilo aad u fara badan ay Puntland u soo jeediso dawladda federaalka wax ka baxsan dhaliilo oo mararka qaarna qofka in shakhsiyadiisa la ataago ah in ay u soo jeedisana ma ahan markii koobaad oo waxa jira muuqaalo kale oo aad iyo aad u fara badan oo ninkan odaga ahi madaxda qaranka sida ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha uu ku karbaashayo taas ayaa jirta iyo sidoo kale wasiirro kale xagaag marka hore horta inagoo xasan sheekh maxamuud islaamnimadiisa inuu qof islaam yahay u naqaana waxa weeye nin tukada masaajidda ku aragno waxa weeye aaminsan islaamnimada ayaan u naqaana ma dhahayno marka wuu saxan yahay ninkan baa qaldan madaxweynuhu sidan weeye waxaan weeye ma dhahayno sababtuna waa in arintani ay tahay arin siyaasadeed marka ay joogtana waa kiis aad iyo aad u culus wax kasta la isku caayaa wax kasta ayaana maaragtay la isku dhaliilaa marka ay siyaasadda joogto ninkan odaga ah shakigiisu waa u badan yahay ninkan odaga shakigiisu waa u badan yahay ma aan markii koowaad oo uu shakiyo bal muuqaalkan ila daawo mar uu ra'iisul wasaare xamse ka shakisan yahay nasabiyadiisa iyo inuu ogaadeen yahay daarood inuu yaa ogaadeen waxaan maqlaynay xamse marxuumkii oo leh dadka reer Puntland baa caqaban marxuumku isaga caqaban in la xoreeyo isaga u baahan oo ku fashilmay inuu wax go'aan ku yeesho xafiiskii xasaanada loo siiyay ee loo dhaariyay inuu wax go'aan ku yeesho 4.5 ummadda Soomaaliyeed ilaa doorasho qof iyo cid laga gaarayo 4.5 bay wax ku qaybsatay inuu wax go'aan ku yeesho inuu metelo dadkii wax qaybta lagu siiyay sida awgeed waa uu lumay xamse waa lumay xoreyn buu u baahan yahay in la xoreeyo u baahan yahay xamse ugu 9 dadka xamar laga qaxay ku jiray taa laftigeeda shaki baa ku jira dhalashadiisa laftigeeda shaki baa ku jira aan u malaynaya waayo xasan iyo groupkiisa damajudiid baa Yemen u dirsaday markii dambana iyaga u dirsaday meesha la yiraahdo Malaysia kadib iyagu NGO uga shaqeynayay kadib hadeer waxa weeyaan isagoon xafiis ay u dhiibteen 4.5 ku fadhiyo oo qof siyaasadda matali kara loo dhiibi karayay wiilka ay soo barbaarsadeen oo baariga u ahaa baa loo dhiibtay marka dhalashada laftigeeda ana shaki baa igaga jira ninku inuu cid uu sheegay inuu yahay xitaa aniga shaki baa igaga jira waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeedna way la qabaan nin dhaladaho 5 dawladood matala oo muxuu ahaayay Jubaland matala oo Puntland matala oo muxuu ahaayay NFD matala oo kililka shanaad matala xasan oxygentu ka jari lahaa haduu dhalad yahay ninkani wuxuu diiday lahaa inuu Kenya diyaaradii uu saaray haduu marka ama uu soo dego madaxweynaha Kenya qaabilo oo laba fariisto u diidi karayay ra'iisul wasaaraha Itoobiya inuu laba fariisto qaabilo ninkan odaga horta waxa weeye waa nin shaki badan oo waa kaasa marka la yad aragtaan isagoo oo ka shakisan ra'iisul wasaare xamse inuu yahay nin dhalad ah oo daarood ah inuu yahay ka shakisan
waxaana marka ay sidaasi tahay waa siyaasadda sideedaba mar kastaba waxaa dulman oo jaba qof dadka taageera labada qof ee is haysata qofka taageera janibkan iyo janibkan labada dhinac dadka taageero umba dulman sababtoo waxa weeye qofkan aad taageersan tahay markaad qofkan taageersan tahay qofkan aad ka soo horjeedo ayaad col la tahay bari marka waxaad arkaysaa isla markiiba adiga xaaladii isgadisay qofkii aad labadii yani dagaashaneed oo aad mid la jirtay oo waxaad arkaysaa heshiis kama dhigna marka adiga iyo qofkii kale inay heshiiseen wali qofkii col baad la tahay marka waligaaba adiga qofna ha taageerin waxana waa siyaasad Ra'iisul Wasaare Xamse oo hadda laftigeeda dawladda federaalka Ra'iisul Wasaare ka ah Jubbaland aad iyo aad maaragtay sanadii ugu dambeeyay cagta ugu saaray oo Axmed Madoobe maaragtay Ilaahay kuma samadiidee aad isku haysteen laftigiisa ila daawo mar uu ahaa mas'uul Jubbaland sida uu hadlay ila dhagiso أنا جبلان Soomaaliya waa dawlad madax bannaan waay Jubbaland Soomaaliya ka tirsan tahay waa federal waa dawlad xubinka dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka Soomaaliya waay waxa ay qabsanayso ayaa qabsanaysa ayada oo ku soconaysa shuruucdeeda iyo dastuurkeeda iyo xeerarkeeda ayada ku soconaysa beel caalam ama ha taageerto ama aysan taageerin anagu intaan sheegnay intaas way loo joojinayo of course maxaa jira waa ajenda ay leedahay dawladda Jubbaland oo dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin dadka reer Jubbaland okay waa Ra'iisul Wasaare Xamse xilligii dawladii farmaajo ay joogtay ayuu ka soo horjeeday waxa uu joogay markaasi maamulka Jubbaland ayuu joogay waxa uu ka soo horjeeday in dawladda federaalku ay farageliso Jubbaland waxa uu leeyahay dawladdu waa dawlad madax bannaan laakiin Jubbaland iyada ayaa xaq waxay u leedahay waxyaabaha dhexdeeda inay samaysato sidaas buu lahaa haye maantana isagiya federaalki ah muxuu rabaa booski shalay uu yani diidanaa in la farageliyo in maanta uu farageliyo sidaas ayuu diyaar u yahay oo uu rabaa siyaasadda marka la joogo Soomaaliya waa siyaasad qarmoon ah oo fashilan oo la yaab leh oo qofku uusan lahayn aqeedo sax ah uusan lahayn yani mabda sax ah oo ku aadan siyaasaddaasi ma lahan qofka Soomaaliya siyaasadeeda dhaxgala xilligii dawladii Cabdullaahi Yuusuf Allah naxariiste waxa aad iyo aad u dhaliili jiray waliba gaal ku tilmaami jiray Sheekh Shariif oo ahaa madaxweynihii ama gudoomiyihii maxaakiimta waxa uu horseed uga ahaa jamaacadii dhihi jirtay Cabdullaahi Murtad inuu yahay nin gaal ah oo murtad inuu yahay Sheekh Shariif ayaa hormuud uga ahaa waxaan ogeyn Sheekh Shariif inuu ka soo goostay nimankii markaas uu matalay maxaakiimtii midowga maxaakiimta iyo ururadii kale inuu ka soo tagay kadibna uu dawladda federaalka ku soo biiristiisina ay sababtay in uu noqdo madaxweynaha dawladda federaalka inuu noqdo markaas uu ku meel gaarka ahayd markii isagu uu kursi ku soo fariistay ayaa waxa lagu bilaabay Murtad Sheekh Baalkale Shariif Murtad in la yiraahdo ayaa lagu bilaabay Shariif Murtad sidii loo lahaa halkaasi waxa ka dhalatay oraah aan ahayd oo Allah naxariistay Cabdullaahi Yuusuf uu sheegay markaas oo uu yiri ma ahayn aniga qofka murtadka ahi murtadku waxa uu ahaa kursiga ayaa ahaa murtad